al-shabaab labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa isdhiibay xubnihii ugu badnaa oo kooxdaasi ka tirsan waxayna iska dhiibeen deegaano badan oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug ila kala duwan oo ka mid ah hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka mid ah hay'adaha dhaqan celinta ee ku yaala Dhuusamareeb iyo Muqdisho waxa ay wariyeen inay soo gaareen dagaalamayaashii ugu badnaa oo kooxda ka tirsan waxayna iska dhiibayaan badi deegaanada maamul goboleedka Galmudug iyo sidoo kale meelo ka mid ah dhulka deegaanada maamulka Hirshabelle maalin qura ilaa 13 dagaalamo oo al-shabaab ka mid ah ayaa isdhiibay waxayna ku sugnaayeen suudinta u dhaxaysa Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe dhulka hadda dagaalku ka socoyo ama toddobaadkii la soo dhaafay dhowr jeer ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo al-shabaab ragga isdhiibay waxay ka mid ahaayeen koox al-shabaab ka tirsan oo dhulka keenta ah oo labada gobol inta u dhaxaysa ku dhuumaalaysanaya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ciidanka dawladda dagaalo iyo weerar ay ku qaadayeen xubno kale oo ka mid ah al-shabaab ayaa iska dhiibay deegaano ka mid ah Galmudug sida magaalada Dhuusamareeb iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka mid ah waxaana xogtan aan ka helnay hay'ad dhaqan celin oo ku taala magaalada Dhuusamareeb oo sheegtay in bilooyinkii la soo dhaafay shabaab badan ay isdhiibeen halkaasina dhaqan celin loogu sameynayo laakiin toddobaadkan iyo labadii toddobaad ee ka horeysay waxay ahayd waqtiyadii ugu badnaa oo xubno ka mid ah kooxdu ay u goosanayaan dhulka ee dawladda maamusho cadaado oo ka mid ah maamul goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay dagaalamayaasha al-shabaab iska dhiibeen waxayna wararku sheegayaan in hal maalin oo qura ay isdhiibeen wax ku dhow ilaa 10 dagaalame magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud deegaano hoos yimaada toddobaad ka hor waxaa ka dhacay israsaaseen u dhaxaysay dagaalamayaal kooxdaasi ka tirsan kadib markii xubno ka mid ah kooxdu ay damceen inay u goostaan dhinaca dawladda laakiin ay la kulmeen cadaadis iyo dhibaato ay kala kulmeen isla dagaalamayaal kale oo kooxdaasi ka mid ah warar aan ka helnay gudaha magaalooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri waxay warinayaan in xubno badan oo kooxda ka mid ah hadda ay qorsheynayaan ama niyadoodu ku jirto inay rabaan inay isdhiibaan laakiin ay la yihiin fursad iyo qaab ay ugu soo baxsadaan isla kooxdaas oo aan ogoleen in xubnahooda ay isdhiibaan amaba dhibaato xoog leh ay kala kulmi karaan marka ay arkaan ama ay dareemaan abaabul isdhiibid ama baxsasho ah arrimahan waxay ka dambeeyeen kadib markii ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis xoog leh ay saareen ama ay kaabiga ku hayaan labadaasi magaalo oo ah meelaha ugu dambeeyo al-shabaab ay ka joogaan maamulka Galmudug ama labada degmo ee ugu dambeeysa ee gobolada dhexe ee al-shabaab ay maamulaan ilaa in ka badan 10,000 oo ciidan Soomaaliyeed ah oo ay ku jiraan ciidamo kuwa deegaanka ah iyo ciidan ka tirsan dawladaha diriska ah ayaa hareereeyay magaalooyinkaas oo kooxdu xubno badan oo ka mid ah dagaalamayaasheeda ay joogaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay magaalada Dhuusamareeb ka hadlay waxa uu sheegay in uusan Muqdisho ku laaban doonin isagoo aan la hadlin ka degin shacabka iyo sidoo kale magaalada Ceelbuur sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadkii uu xalay la hadlayay ee ku sugnaa Dhuusamareeb iyo kuwii kala socday warbaahintaba waxa uu u sheegay in al-shabaab aysan ku gaari doonin 2 sano ka horna dawladdu ay ku guuleysan doonto in kooxdaasi laga cirib tiro guudaan dhulka Soomaaliyeed ama xataa ugu yaraan al-shabaab macna leh ama al-shabaab weyn aysan Soomaaliya ku sugnaan doonin haddii al-shabaab laga qabsado labadaasi magaalo oo ay hadda kaabiga ku hayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kooxdu waxay noqon doontaa ama ay la kulmi doontaa dhabarjabkii ugu weynaa iyadoo ay durbaba wajahayaan niyad-jab tafaraaruq iyo in kooxdu dhaxdeeda ay kala shakiyeen ama ay dagaalamayaan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xalay Dhuusamareeb ka sheegay in weli cafis loo fidinayo dagaalamayaasha kooxdu ka tirsan haddii ay soo dhiibaanna ay noqon doonaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda jooga shaqooyin heli doonaan xilal loo dhiibi doono waa haddii laga arko inay si dhab ah uga tanaasuleen fikirka kooxdaasi dagaalamayaal badan oo kooxdu ka tirsanaa hore soo dhiibay ayaa hadda ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ilaa Mukhtaar Robo oo hogaamiyaasha kooxdaasi ka mid ah oo hadda uu yahay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya sidee u aragtaa daawade dagaalamayaasha tirada badan ee dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay al-shabaab ka soo goosanaya iskuna dhiibaya ciidamada Soomaaliyeed aragtidaada qaybtoosan ugu la wadaag